waxba yuu mac salaamayn waxba yuusan farxadii salaamay iyo muujin yuusan xabad igelin yuusan maaragtay qosol iyo nabad igu soo noqo iyo dad familka la tagay yuusan ba ii muujinay maxaaba iiga sii darnayd bay tiri ama waxaaba iiga sii darnayd in uusan intii safarka dheer aan ku sii jiray hal mar xataa usoo soo dhihin xagee sii maraysaa maxaa ku hagaagay diyaaradii ma kula dhacday ma kula nabad tagtay wadankeed ku tahay transit run ahaantii laba hameen iyo laba maalmood ayay sii socotay oo safarkeedu u qaatay maadaama meel aad u fog ay ka timid intaana hal mar xataa ma uusan soo wicin mana uu weydiin meeshay maraysay iyo inay nabad tagtay iyo xaalkeedu wuxuu ku sugan yahay qof aad u xanuunsan way ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام غير تشرفت لما الكستوت كسوغنتين معي برارة كواران إذن ليه وقتي وهيدين وعنادو وقتي كستوت كسوغنتين وحيدين ليه معي برارة كوارا وقرنتين قصر لي حبيب كينا محمد صوبانهنا صلى الله عليه وسلم وقصديني قيبتي السقالات waxaan idin leeyahay channelkeena rukumta subscribe saar si aad ula socotaan qisooyinka cajiibka ah oo mar walba soo gudbino hadduu ilaahay idmo subscribe ku ayariya subscribe saaro gambaleelka furo si ku soo gaaraan mar walba fiidiyoyada quruxda badan oo soo galino haddii aadan gambaleelka furan ogow waa dhagalaadahay waxna kuma soo gaarayaan sina share gareeya fiidiyowga oo la sii wadaaga asxaab badan si ay ugu cibra qaataan qisooyinkan cajiibka ah oo soo gudbino insha Allah ta'ala halka markay xaaladdu maraysay warsaniyo hagaag gabadhii alxamdulillah ilaahay safarkeedu wuu ku nabadgeeyay way nabad tagtay rafaad badan ogow qof xanuunsan bay ahayd qoftii ninka ka tagtay oo inta laba cawo iyo laba maalmood xageed ku dambeysay ama xageed sii maraysay oo san dhihin qof aad u xanuunsan xanuunkeeda iyo xaaladeeda ilaahay og yahay bay ahayd laakiin nasiibkeeda ilaahay ugu badbaadiyay nabadna way ku tagtay waqti badan iyo safar dheer kadib waxay tagtay wadankii ay ka timid gurigeedii ayay nabad tagtay halka ayayna ku dareentay nafis iyo raaxo oo iyadoo xanuunsan ay ku dareentay in ay caafimaadday camal maadaama ay ciriiri ku jirtay oo ay muddo dheer waqti badan bilo badan ay ciriiri ku iyo ciil iyo calool xumo alxamdulillah halka markay xaaladeedii maraysay laakiin balan ay ku soo kala tageen oo ay ahayd balantay ku soo kala tageen in ay markay bilo dhamaysato u yimaado si uu u garab istaago si uu ula joogo si uu xaaladeeda u ogaado waqtigu wuxuu isguraba waxa la gaaray waxay xaalad isaga jirtaba waxa la gaaray waqtigii ay umuli lahayd ama foosheeda saaxiibka uu tirsanahay waqtiga oo asaguba uu la socday waxa laga yaabaa inuu islahaa qoftan iyasan wax ku qarin haday rabtay bal waqtiga la soco ilaa intii si kastoo ahaataba waqtigii markii la gaaray uma uusan soo dhaqaaqin wax yar kadib markii ay yacni umusheedii maalmo ama wiigag ka hareen ayay la xiriirtay oo waxay ku tiri miyaadan imaanayn soo balanteenu sidaa maayo waxaan ku yiri maya baasaboorka ayaa iga dhacsan ma imaan karo shaqan ku jira fasax ma helayo arrimahankaas oo iska dee yacni marmarsiinya ah run ahaantii waa arrin aad u fool xun shaqo kastoo aad ku jirta iyo ma garanaysaa baasaboorka hadduu dhacsan yahay 9 bilood baa kasoo wareegtay baasaboorka haddii ay arrintaa run ka tahay ama markii horeba wuxuu sheegayo aysan khiyaano ku jirin dee intaa wuu cusboonaysiisan karay wuuna maaragtay jididsan karay si uu uga qayb qaato ama uu ayada u garab istaago laakiin nasiib wanaag ma aysan dhicin adigu quus kale iyo mar kale waa quus kale iyo mar kale waa niyad jab iyo mar kale waa calool xumo iyo mar kale halka ayay haddana cidladii iyo culayskii iyo fooshii oo soo wajahan ayay mar kale la daalaa dhacaysay nasiib wanaag waqtigii ay umuli lahayd ayaa la gaaray ilmihii waa lagu qalay aad bay u xanuunsatay markii ilmihii lagu qalay alashan dad badan ayaa waxaa jira markay umulaan xanuunsado oo xanuuna ku dhacan oo xanuunkan pressure-ka la dhahayo iyo madax xanuun iyo ma garanaysaa arrimo badan la kulma oo umusha anaga wadankeena waxaan dhahnaa umusha lagu maray umusha ku waalata markay umushay xanuunsata waa xanuuno caadi oo dumarka mararka ay xilliyadaas ay jilicsan yihiin ku dhaca oo foosha iyo umusha iyo xaaladda isbedelka uu keeno qofkuna in laga tacaalo oo laga daweeyo uu u baahan yahay hadii uusan dawo iyo tacaal helin qofka xaaladiisu ay halis ku jirto dad badan ay u dhintaan dad badanna ay waalida ku tagaan oo ay waashaan halis ay naftooda iyo xaaladooda ay ku gasho runtii gabadhii xanuunkii ayaa ku dhici gaaray amaba ku dhacay borderkay u istaagtay laakiin qof ilaahay ku xiran bay ahayd ilaahay baa badbaadiyay waxay tiri waxaan gaaray heer aan yacni waa ogtihiin wadamada gaalada markii ilmuhu uu dhasho hadii uusan aabihiis cunuga joogin xataa oo labadan qof aysan haysan shahaadadii guurka oo ma garanaysaa maxkamadda
ay isku soo meherisay oo cadaynta ahayd يعني كما شقيو مهر إسلام با اسكو قبنا مرة عنقان اسبيتال ku dhasho meher islaam baa isku qabnaa kama shaqaynayo waa inuu aabaha cadayntii inaad isqabtaan aad keenta hadii aadan keenin cadayntii inaad isqabtaan oo maxkamadda waxa weeyaan cunuga waxa la siinayaa magacaaga oo hooyada magaceeda in ayaheeda ayaa asna la siinayaa hebel heblaayo yani hebel heblaayo lama dhahay waxa la dhahayaa ayada heblaayo hebel ayada in ayaheedii baa asna la siinayaa cunugii oo hooyadiis ayuu ku abtiris noqonaya cunugiisi sida ayuu noqday oo hooyadii ayaa loogu abtiriyay maadaama uu markii horena de aysan maxkamad tagin ee si caadi oo islaam ah meherka islaamka ay isku mehersadeen kadibna uu diiday inuu intuu yimaado uu sharcigiisii adduunkiisa geeyo uu yiraahdo cunugan anaa dhalay waa kana amaba maxkamadda markaa wadankaas ay iyadu joogto uu ka cadeeyo inuu asagu gabadhan qaba ilmahan uu dhalay si magaciisa loo siiyo ma aysan dhicin oo magacii waxa la siiyay hooyadii ayaa cunugii la siiyay ayadina way xanuunsatay oo xaalad caafimaad ayay gashay run ahaantii